بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصطفى ضفلة وديايو إيدو كون سلامي مصطفى كسلامي وديايو سيدي ايو إيدو ومعصنتك كسلامي عفماتك كورنب ان wax badan hadal badan uma aanan soo galin waxaan marka hore inaan u mahad celiyo shacabka Soomaaliyeed kuwoodii runta ku qanco dad baan runta Ilaahay aanan ku qancin baa jiro oo xanuunsan baa jiro oo hadduu Ilaahay ku roon yahay ikraan tahliin nolosheediiba aanan marnaba raali ka ahayn waxay ka biisay sababta ay nolosheeda u diidan anaka waan ognahay ayagana way og yihiin waxay u diidan yihiin waxay sameeyeen bay og yihiin waxay sameeyeen ileen programka gabadha lagu dhiibay wuxuu ahaa in la khaarijiyo oo la dilo oo ay soo bahaysteen oo hadduu Ilaahay ku roon yahay oo ay rabeen inay u khaarijiyaan waxay ahayd gabadha sir fara badan baa hayso sir fara badan baa gabadha ku keedsan gabadha xog badan bay haysay waxa loo dilay in xogtaas ay ahayd illa maanta waxa laga dhaadhicay Ilaahay oo maana waxa daalac bay noo sii raacdeen oo waxay leeyihiin ikraam ma noolay ku leeyihiin waa dhimatay haye okay haddii ikraan inay dhimatay adiga aad aaminsan tahay caddeynteedii keen meeshay ku dhimatay ilaa qof bin aadam oo dhintay ma qarsoomo sideediba qof nool waa la qarin karaa qof nool waa la qarin karaa in muddo ah laakiin qof dhintay lama qarin karo Soomaaliyeed taas inaad aamintaan ma loo baahan yahay Ilaahay baa sheego qof dhintay haddii bin aadamka inuu qariyo hadduu isku dayo Allah sheego ikraan tahliil inay nooshahay oo Ilaahaynu og yahay waa mid maanta aan idin xaqiijinay waayo waxaan aad iyo aad ugu xumahay teleefoonkii baa meeshii aan saari lahaa telefoonku waa telefoon weyn waaye meeshii uu qaban lahaaba musan qabanaynin sidii loogu talagalay uma qabto waxaana waa inaan u mahad celiyo baraha social mediaha kuwa wanaaga jecel ee Soomaaliyeed sida wanaagsan ay ugu falceliyeen markii aan u bishaareynay markii wax lagu farxo aan u sheegnay markii gabadhii ikraan tahliil ahayd ee cadow loo gacan geliyay nolosheedii aan soo xaqiijinay Ilaahay waxa qadaray in annaka daalan noo raacdo see ku dhigi kartaa waa nooshahay annakaaba dhahnay waa dhimatay annakaaba dhahnay waay Soomaaliyeed waxa maanta taagan annakaaba dhahnay fahada dilaya ma dhahnay baya annakaaba dhahnay farmaajo dhiibeen dhahnay annakaaba dhahnay si adii ku dhigi kartaa war umad halaag loo wado wallahi oo billahi tallahi Soomaaliya Ilaahay meel buu wataa Soomaaliya alla meel uu wado kolba Ilaahay meesha uu wado Ilaahay subhanahu wa ta'ala hana badbaadiyo maxaa yeelay ummad been mooy runba inay ku qanacdo diiday way hay waxay ku leeyihiin caddaankan war adiga caddaanta aniga adiga rabto maxay tahay yaa aniga indhaha wixii lagu soo arkay baan ku xaqiijiyay gabadhi inay nooshahay oo ay joogto magaalada Hawaii inay uur leedahay in hadduu Ilaahay ku roon nin Bangladesh oo muhaajir ah la siiyey lagu qaboojiyay ayaan ku sheegay 3 bilood inay interview ku jirtay baan ku sheegay habeenba guuto cusub al-shabaab loo dhiibay la argagax geliyay la dhibaateeyay wax walba step by step baan kugu sheegay laakiin waad qani weyday ma qancisid waxaad leedahay maya waa dhimatay ikraan waa nooshahay Ilaahaygi حيد محوها حيد لها حيد نولايها أها حقي سبيكم نوشي أدي حقاكم النور اللي أدي واد ديبتي واد قلبي السي بابور باتكتب قادتي واد قلبي السي عدوي أدي الله شقيسي الشباب كاها
oo mar hore adiga kaa soo askuntay baad u geysay yaa cadowgii adiga aad bilowday bini aadam shabaab noqdo ciddii bilowday waa la yaqaanaa soo maha annagana waa naqaannaa ayagana way is yaqaanaan soomaalina way taqaanaa mii fahamte shalay waxaan arkaayay nin oo mid ahlu naar ahoo raxaweyn ahoo gobolladan koonfurta soomaaliya ka tagay gaar ahaan xudur zoonkeeda bokool ka tagay baa waxaa lagu dilay meesha la yidhahda baxdo waan soo dhowaynayaa yaa ninkii meeshaas ayada ah yidhi halkaasaan ku soo jihaadi jinnan raadsanaya qofku yidhi oo shabaabka ah hadduu aniga ila dhalaan waxay ku soo dhejiyeen sawirkayga ku soo dhejiyeen war haadhe aniga habaar waa liigu kari waaye sawirkayga iska dhaafe yaa sawirkayga iska daaye war haddaad fiidiyow al-shabaabnimada haddii aniga hadda maanta meel soo istaago shabaab haddaan dhaho war ad aniga akhrisanaysaa bay yaraatay ma jirto habaar waa liigu kari waayey wax walbood samaysaan wax kastoo aad samaysaan waxaa waaya maantayto waxaa ilaahay mahaddiisii ah nin yaqiin ku nool baan ahay yaqiin baan ku noolahay oo yacnii nolol dhab ah oo xaqiiq baan ku noolahay mooyee nolol artificial ah oo xaaraam ku soo ballaabatay xaaraam soo martay oo hadduu ilaahay kure xaaraam lagu soo koriyey aniga kuma nooli nolol wanaagsan baan ku noolahay aabbahay macallin buu ahaa xaafidulqur'aan buu ahaa ummaddan wax badan buu u soo shaqeeyey marka waxaa waaya waxaan aniga aan sheegaayana waa waxaan soo xaqiijiyey indhaan ku soo xaqiijinay indho dad baan u dirnay il baan ku soo xaqiijinay aragti ima sawirka keen adeer deegaanada al-shabaab moobeel sawir moobeel kaamerle qofkii lagu arko waa u dhammaatay mii fahamte middaas waajib aniga isaaran ma ahan waan u sheegay aabbaheed hanala soo hadlaan dhahnay qaraabada hanala soo hadashaan dhahnay habartan inaysan ayada dhalin baan xaqiijinay oo waan sheegnay ilaan gabadhii baa sheegtay midaan anaga sheegnay ma ahan gabadhii interviewgii laga qaaday ayaa sheegtay qaali guhad inaysan dhalin dadku qaar waxay leeyihin qaali guhad ilmaba ma dhalin dad baa yidhi allaahu aclam warkii laa xalay waa isu soo tarayaa maamada inaysan weligeed allaheedba ilmo dhalin dad baa yidhi ani ma aaminsani ma aamini karo laakiin qaali guhad maanaa gabadhan ikraan tahliil yidhaahdo maamadan inaysan dhalin oo ay soo korisay oo ay eeddu u ahayd oo aabbaheedii hooyada ayada kala geysay oo ayada gurigaan burburisay ayadoo yar la soo tuuray war gabadhan shabaab baa soo waraystay oo ka soo qaaday mii fahamta marka ninka rabo oo shabaab ha noqdo ama ciduu doon ha noqdo rabo in aniga deegaankaygii aniga aan leeyahay deegaankayga inuu ka dhex kalluumaysta rabo dad nool inuu ku qariyo rabo uma suurtobayso haawaay iyo sablaale iyo kurtunwaare iyo allanfuutow iyo hadduu ilaahay buulafallaay iyo kanaanax iyo yaaqbaraawa iyo bu'aale iyo arabow iyo kurtun iyo meesha layidhahdo jilib iyo jimaamo xaramka war dhulka anaa deggan dhulkan qofkii raba inuu wax ka qarsado adeer macan waa diidnay waxa kale iska daaya wadaadkii aadan suni ahaa yaa aadan suni ninkii la dhihi jiray oo hadduu ilaahay kuu roon yahay snmtu ay soo dirtay snmtu ay soo dirtay koonfurta soomaaliya inuu qaso waa sheegaynaa meeshuu joogo ilaahu haddaan ameerikaan aan u helno haddii wax gantaalku dhufan kar haddaan helno waan sheegaynaa marka adiga afkeen haddaad toli karto kaali tol ikraan adiga dhimashaad ugu tala gashay waad shirqooshay waad iibsatay mii fahamtay rooblow $100,000 ayuu siiyey maalinkii habartan qaali guhaad iyo odigii ugaaska gaaljecel ahaa ay ugu tageen xafiiskiisii $100,000 buu siiyey laaluusha maxay dhaheen waxay ku ayideen gabadhan nisaa baa dishay dhaha maamadan la leeyahay waxaa layidhi war gabadhaadii mahad salaad baabuurkiisa lagu qaaday maya laguma qaadin gaarigii dhishiikaha indhacaddaa lahaa indhacad yuusuf siyaad indhacaddaa lahaa deegaanadan dhoobeyda asigaa kala yaqaan asigaa gabadha geeyey maya ma taaban maya suuragal maaha bay tiri
gabadhaadii alcadaala u yeeray xafiiska ra'iisul wasaaraha ugu yeer dhaxda lagala baxay intaas xafiiskii soo gaarin dhaxda laga watay war gabadhan waan idin markii ugu horreyso xafiiska nabad bay ku tagtay maalin bay tagtay ilaa xafiis sidiisi maalin baa la aadaa xafiis habeen la isugu yeero xafiis habeen la isugu yeero tada kale islaantan maamaqaali guhaada arrintan mishinkan inay kaalin muhiimay ku lahayd yaa waxaa daliil u ah wixii ayagay u meeriyeen bay akhrisay warbixintii mahad salaad laga soo qaado tii cabdiraxmaan shakuur laga soo qaado oo hadduu ilaahay kuro shirkeeda jaraa'idba waxay noogu soo qaadi jirtay ilaa ummadda ayadaa waxba fahamsaneene warqaddii loo soo qoray akhrinaysa meel uguma leexanayso indhaheeda fresh waay waxbay arkaysaa warbixintaan loo soo dhiibayaa saas u hadal saas dheh waa beentiis fahad waa beentiisii dheh farmaajo waa beentiisii gurmud qaran been buu sheegayaa dheh waka mii fahamti bartaas shirkii jaraa'id facebookii cabdiraxmaan in warsame facebookiisii wixii uu ku qoro koobigii loo diro ayay noo qadkaa xun dhul waxaan marayaa oo golan haytis oo buuraley ah aad baan ugu xumahay laakiin maanta laayfida insha allah isdaba joog bay noqon doonaan hadduu ilaahay idmo waa isdaba joog maanta waa maalin xasaasi ah waay barnaamijka sheergaray shacabka soomaaliyeedow waxaan rabaa inaan idiin sheego nimiyahow waddankan run looma baahno run lama rabo gabadhan waxay saaxiibba ahaayeen gabadhan waan idiin sheegay soomaali in wax loogu celceliyo dugnud loogu shubo ul loogu sii darmoy si kale wax ku fahmaysa baynaate maaha mii fahamta haddii maanta soomaali oo dhan aan ulayn karo wallaahi ul baan la dhici laha ilaahay baan ku dhaartay maxaa yeelay waxaan aniga wax la soo xaqiijiyey oo yaqiin ah ma waxaad rabtaa yaa ma waxaad rabtaa gabadha hebel gurigiisaa la geeyey shaybaar hebel baa baaray dhakhtar hebel baa uurkaa soo xaqiijiyey wadaad hebel baa gabadha goobjooga markii ninkan bangaaladeshka loo guurinayay alaabteeda meesha laga soo gaday hebel baa soo gaday inaan dhah maaga rabtay dukaan hebel baa loogu soo adeegay meel hebel baa cilaan loogu soo saaray adeer raalliad ahaanaysaa middaas ayada ah adiga mid ka beddel haddaad gabadha dhimashada haddaad hayso gabadha meeshii lagu dilay iyo qabrigeedii keen adiga iyo lafaheedii adiga keen mii fahamta cidda dishay meeshii lagu dilay saacadda la dilay meeshii lagu aasay adiga keen adiga keen yaa mii fahamta xaqiiqda aniga aan keenay keliya keen wax u eg meel heblaa qabri ku yaallo saasaa loo dilay madaxa loogu istaagay saanaa la yeelay yaa keen adiga ma keeni kartid waa beenaalaa tahay shacabka soomaaliyeed meel walbo caalamkay ku jooga waxaan u xaqiijinayaa gabadhan kiiskeedii inay beri ka tahay hay-adda nisaa ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed wax shaqaysan ku lahayn gabadhan ama bixinteedii meelgeynteedii shirqoolkeedii habeen buu dhacay saddex qaali guhaad caddaysay warka laakiin ayada qaab kale loogu turjumay oo waa wareejisay warkii madaxiisaday soo qabatay oo gadaal halkaas oo kala geysay lugihii bay soo qabatay markaasaa manaa war madax laga soo jaray oo lugaha laga soo jaray oo buudii keliya noo keentay qaali guhaad oo ay u soo dhiibeen cadowga qarandimuska ah yaa cadowga soomaaliyeed baa u soo dhiibay waan ognahay annaga ma lama qaldi karo mii fahamti arrintan annaga nafsad ahaanteenni waxay nugu dhalatay kiiskan markii uu yidhi amiir fahad yaasiin xaaji daahir oo ogaa oo soo xaqiijiyey gabadha in mahadkaratay loo geeyey muhiimaddu maxay ahayd mahadkaratay gabadha mid dilay mise waa laga fujiyey dhiigyacabka mahadkaratay ah gabadha dhiiggeedii muu cabbay mise wuu sii daayey waxaa nugu dhaliyey raadinta aan raadinnay wafdiga aan u dirnay jamaahiirta aan u dirnay tiim gurmud qaran iyo difaac qaran ayagoo isgarabsanayo caawa ama habeen dambe waxaa la soo xaqiijiyey gabadhii hooyadeed kutulow meel inay deggan tahay keeniya ku taalla gabadha hooyadeeda oo maamada dagoodiye meel kutulow la yidhaahdo kutulow qofkii yaqaanaa yaqaano
kutulow meel baadiyaheedii ah ayay degantay tuulo yaroo kutulow u dhow magaa baas bay ku sheegay maxamed cali baa yaqaano difaac qaran baa yaqaano hawsha waa la kala leeyahay difaac qaran baa maamidii soo helay mahadiya ka gaarto shabakadda difaac qaran baa Kenya dhex gashay maamidii la soo helay gabadha dhashay ayada hadli doonto ayada ayaa hadli doonto ummadda Soomaaliyeed waxa leeyahay marka nimiyo runta idin deeqdo kiiskan waa idinku fashilmay ilaahay baan idinku ceebeeyey Allah idinku ceebeeyey waxaad ku tala gasheen gabadhaas miskiinta ah ee walaasheeni ah inaad qarisaan oo cuntaan lafaheedii mahad karatay inuu cuno ayuu rabay hilibkeeda mii fahamta sababtoo ah shabaabna waxaad ula jirtaan keliya interest dhaqaalaad ula jirtaan keliya wax kale looma jirtaan maxaa yeelay wax diin ah oo maanta wax laydinka weydiinaya ilaahay unta abuuray ma laha diin waxba laydinkama weydiiyo kooxdan oo shabaabka kuwa uu shaqeeyo diin waxba lagama weydiiyo xasan daahir awees baan diin wax laga weydiinin odayga adeerkay ahaa maxaa yeelay waxaan wax asaga abuuray waaye ilaa haddeertan dunuubtan uu ummaddan ka galay hataa midkaan oo yani muxuu kuwa raxweenta ah oo hadda la marin habaabiyey odigana wax baray isaga wax baray asagay xir u ahaayeen markuu wax barayna maanta dunuub kasto mudug hadday dembi ka galaan xasan daahir awees baa wax ku leh min ajli dhalika katabna ala bani israa'iila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fi al-ardi فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا حسن داروس هتكدو هالصومو هالصلاة وحول بهالسمية وحكستدعه أو دالكان قف كستول الدلو حسن داروس قيبو كلية وذات هالسرير كندقو مر سركال عيدن بنا هده مر هدو إلهي كوروي هاودو ضمحوها عيشة قديك فاد ياسين هدو الميو wax kasto dalkan ka dhaco maalinka qiyaam ilaahay asaga wax ka weydiin maxaa yeelay ilaa haddeertaan toobad lagama hayo mii fahamti wax toobad ah oo laga hayo war waxaan aniga ku jiray diin ma ahayn war dulmi bay ahayd war waxaan anaa abaabulay war waxaan anaa sabab u ahaa war waxaan aniga anoo qabyaaladaysan baa waxaan qabyaalad baa igu kaliftay ilaa hadda waa laga laayay inuu toobadka lagama hayo sidaas daraaddeed marka dunuub kasto dalkan wixii ka dhaco ee Soomaaliya gudaheedii number 1 buu ka yahay asaga iskale kooxdii asaga tababaray baa joogto indhacada joogo oo hadduu ilaahay ku roon yahay amiir u ah kooxdan hashiis la galay aamini waay asaga inuu ku dhaxnoolado uu aamini waay laakiin wuxuu u ballan qaaday inuu la shaqeeyo oo uu yidhaahdo asagoo aaminsan hadafkoodii isagoo aaminsan hadafka khawaarijnimada ah ee ummaddan Soomaaliyeed dhibaatada lagu hayo asagoo og gabadha asaga dhiibay nimiyaha waday dhib idinku ahayd iyo haddii kaaba ikraan taaliil way nooshahay ikraan taaliil ciddii dhibaato ku ahayd haddii ilaahay soo badbaadiin ayadaa hadli doonto ikraan ayadaa hadli doonto ilaahay subxaanahu waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhrajan wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib ilaahay qaab unbuu u badbaadin doona wuxuu ka soo badbaadiyey cadowgii loo gacangeliyey baa ilaahay baa ka soo badbaadiyey waxay ka soo badbaaday intaasoo guutaan loo geeyey intaasoo qof oo al-shabaab oo darajadoodii kala sarrayso gabadhaas saas looga wareejiyey ayadoo ilmo yar ah ayadoo rajannimo ku soo kortay ayadoo yar aabbaheeda hooyad la kala geeyey aabbaheed cudur lagu riday aabbaheedii cudur la qaadsiiyey aan loo nixin dooqii tahliil ahaa maanta sariir buu saaran yahay miyay fahamta waa kadeeday waa rafaadisay meel walbay wax walbay u adeegsatay dhibaato kastay u geysatay wax walbay ku samaysay odaygii waa hadda maantayto waa oday asagoo dhakhtar ah PhD holder ah aqoontiis loo baahnaa imir degdega bay ku riday sariir buu saaran yahay waa xanuunsan yahay baa lidhi miyay fahamta markaas ka bacdi baa meel idlaa ugu dhaqaaqtay may soo tiraahdo anaa dhalay saasaan u dhalaysa may tiraahdo maalin wal way hadli jirtee may soo hadasho anaa dhalay haddaad dhashay caddeynteeda keen gabadha baasboorkeeda keen haddaadii hooyadeed tahay
gabadha baasaboorkeedii koobigiis waa yaala soo saar haddaad hadda samaynaynin inuu hadda samaynay anaaba oge ya inaad hadda samaynaysaan anaaba oge gabadhii baasaboorkeeda keen hadda adigaa dhashay gabadhii way ku diiday ima dhalin bay tiri misku qasbe ya qaali guhad gabadha adiga ma dhalin gabadha adiga maadan dhalin gabadha hooyadeed waa la yaqaanaa muumina la yidhaahdaa muumino ayaa la yidhaahdaa saacadaha soo socdana maamadii waxaa loogu sheekay haddaad gabadhaad aragteeda ka hadasho shabaab baa ku dilay aamus baa layidhi nimankii oo dagoodiyaha ahaayo reer wajeen ahaa oo sujuug ahaaba waxaas ka dhaadhiy maamada war maamadu way hadlaysaa way hadlaysaa aniga hataa nin abtigeeda ayaa mar farriin ii soo qoray watsapkii baa iga dhileed garoobay abtigeedii baan ahay muuminaan la dhashay hadduu ilaahay kuu roon yahay wajeer koonti aan joogaa buu ii soo qoray ilaahay amarkiis nambarkii maanan seefgaraynin wajeer koonti buu jooga koonti wajeer koonti ayuu joogaa yaa waa fahmtay sooma wajeer koonti ayuu ku nool yahay ninka asiga yaa marka waxaan rabaa shacabka inaan u xaqiijiyo soomaaliyeed shacabka soomaaliyeedow war islaantan gabadhan wax badan bay barbaqaantay wax badan baa gabadhan xuquuqdeedii duufsatay wax badan baa qarash ku qaadatay laakiin maanta waxay nasiib u yeelatay ikraan tahliil in deegaanka aniga aan u dhashay deegaankaygii aniga aan leeyahay deegaankaygii aniga aan u dhashay deegaankaygii ee aniga ka soo jeedo in maantayto cadowgii soomaaliyeed meel walba iyagoo isugu yimid gobollo fara badan ka yimid yaa inay maantayto inay ku gabbadaan ay rabaan kan geela la jiro kan xoolo dhaqatada ah kan beeraleyda ah kan hadduu ilaahay kuu roon yahay shinnada malabka ka soo goosto kulli kan oojigo jareerta ah waa dabarre waa dadkaygii waay qaraabadaydii waay mii fahamta ma iga dhex dhuuman kartaan waxaan leeyahay nadweygii baa iga xun insha allahu tacaalaa dib baan ugu soo laaban doonaa waxaan ku soo gebagabaynayaa waad mahadsantihiin baraha bulshada social media kuwa runta jecel ee runta ilaahay daawo ugu dhigay waa mahadsantihiin ikraan saad sheegteen waaye ikraan insha allahu tacaalaa ilaahay subxaanahu wa tacaala iyadoo nabad ha kala keenno uurkeeda 3 bilood waaye nin Bangladesh baa la siiyey nin Bangladesh baa gabadha guursaday mar labaad baan ku cilinayna mar saddexaad mar afaraad dhagaha fura tambiir baa la yidhaahdaa halkaasuu joogaa aniga sawir kama soo qaadi karo ciddii aadi karta ha aado kuwii weydiinaya caddaankan ruuxaan nadweeg ma jiro alaa kulli xaal waxaan idiin sheegayaa baraha bulshada kuwa runta jecel waa mahadsantihiin dib baan ugu soo laaban doonaa barnaamijkan waana faahfaahin doonnaa ikraan tahliil nolosheedii kuwa dhibayso ikraan way hadli doontaa haddii ilaahay soo badbaadiyo wayna sheegi doontaa ciddii meesha geysay dhulkaas deegaankaas meesha hawaa la yidhahda inay ku nooshahay waxaan idiin sheegayaa ilaahay baan ku dhaartay haddaad dhimasho ugu tala gasheen gabadhaas way nooshahaye ilaahay mar unbaa cadowga ka soo saari doono waa mahadsantihiin dib baan ugu soo laaban doonaa barnaamijka isha ku hay gurmud qaran miidiya insha allahu tacaalaa dalkeenniina aan badbaadino shacabka soomaaliyeed qaraankii maalmahan waad ilaawdeen war shirkeennii denmarka inaad suurtagelisaan isku daya insha allahu tacaalaa dadka soomaaliya ku nool nin walow wuxuu awoodo nambarkaas EVC-ga ku soo diro 55 eber 21 29 eber 21 furaa 5 eber 21 ku soo dir wax allaale wixii awooddaadii ah si shirkaas nooga hagaago noogu suurtogalo ummaddeena aan u badbaadinno waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu telefoonkii waa dhacay ilaahay amarkiis waaye waa mahadsantihiin insha allahu tacaalaa dhul waxaan marayaayo qaab daranoo buuraley oho nadweegis iska xun baan marayaa marka insha allah waa mahadsantihiin waan isku soo laabanayna maanta waa sheekaysan doonaa insha allahu tacaalaa والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.